waxaan filayaa dhowr jeer baan ka hadlay arrintaas mowqifka cad ee dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ayaan qayb ka ah dalka Soomaaliya xuduudihiisa cirka iyo badda iyo dhulka waa wax adduunka aqoonsan yahay oo ku qoran axdiga qaramada midoobay kan midowga Afrika kan Carabta kan ururka Islaamka kan IGAD iyo East African Community xubin ka noqon markii ugu dambeysay marka laguma xadgudbi karo sharci caalami ah caalamkuna waa noo heeliyeen dawladuna shaqo aan caadi ahayn ay qabatay madaxweynaha gaar ahaan guulahaasna waa guulo ummadda Soomaaliyeed wax badan sugaysay oo laga soo bilaabo dawlad dhiska Soomaaliya waqtiga uu bilowday dagaaladii sokeeye laga soo baxay dawlad dhiska maalinba maalinta ka dambaysa la gaaray hadaf ay kamid ahayd in deymankii cafintii ay noo meel martay in amro qabataynta hubka laga qaado dalkeena si ciidamadeena loo qalabeeyo loo tayeeyo in aan kamid noqonay urur goboleedka dhaqaalaha bariga Afrika iyo kuwa kale badan oo aan wada xusi karin intaba guulo dawladdu ay keento ummadda Soomaaliyeed leedahay waay waxaan aaminsanahay wali waan ogahay iyadoo caqabado lagu sameeyo qayla socoto ayaa la meel mariyay waana caadi حتى دان سبورت وبدلنا فوتبولك إنك جول داليها يضع فرقها الله يسوع حصلك يجيبك لو جرع يقولش داليها هذا حين حسن شيء مركي يضع قيل دان يري سوم المرية وحبضا وما ركتي ومدة دنت هذا هو أنا وحي ودارته مسؤولية وقاضي مركي أصلا نقطة أنت أبي أحمد ومصبيح وخل ضمينا به كرا هذا يأخذ ضمان وحي وقفين من الشروع العالمي جاه وقفين وأسوق بقى قيب كيه ضمع وعلم بقى أهله يعني ما قام وحوق جيده وحن آمن سنة ولي بقى إننا شعب كيس يومدي سكر حسنين وحن آمن سنة قايلة أما خلافات كدل كيس جوديس كجرا إنه كل يحيو إنها كل يحيى أو إلى هذا بدء وحيد هلي دكاد يرول عادي هذا أنا بحمه هاي وحقدر أن متك Soomaaliga جاء أو من سنة إنه يبين كرو رول يبض Soomaaliyeed دور جربانا كهالله عد يبين كرت ما جرت عد يبين كرت ما جرت حتى الدولة فدرال كهو هل سنتيمتر ما يبين كرت تدخل تاكينا سنتيمتر كجاون waxaan u arkaa anigu khiyaano qaran maalmaha kamidana isagoo maxkamad taagan in la arkay aan aaminsana sababtoo ah markii hore waxa lagu haystay dastuurka Soomaaliyeed 60 la meel mariyay midnimada Soomaaliyeed ku dhisan tahay ma ogola in dalka la kala gooyo marka cidii tiri anaga kala gooynayna inay meeshaas horta khiyaano qaran ka sameeyana meel u taalay waxa ka sii dartay markii uu yiri dhul baan iibinaya bad Soomaaliyeed marka waa aragteen falcelinta ay ka sameeyeen shacabka Soomaaliyeed dalka gudihiisa dibadiisa meel kasta oo joogan laga bilaabo waqooyiga gobolada waqooyi Soomaaliya hargeysa dhexdeeda laga qaylinayaan arkayay shacbi dhahaya loo yacda ilaa raaskambooni ummadda Soomaalida iskale dhowr iyo 20 milyan ayaa wada le marka qof iyo shakhsi iyo koox iibin karta ma jirto hargeysa laga dhaxyiri gobolka awdal waa la socotaan waxa ka dhacaya waa lagu ku ceeboobeen meesha la yiraahdo gobolka Sool iyo Laascaanood bariga Sanaag iyo Togdheer iyo gobolada waqooyi ee Soomaaliya oo dhan boqolkiiba 80 waxaan aaminsanahay inay falcelin ka sameeyeen ay ku difaacayaan badda iyo dhulka ciidda ee calanka shacabkeena ay dawladda federaalka ku taageereen marka wali rajow leeyahay hadduu ka tooba keeno oo ka noqdo waxaan isleeyahay maxkamadeynta ka yaraan doonta laakiin in la cafin karo ilmaha sharcigu waa taagan yahay waqtigeedana la sugayaa marka waxaan uga mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dawladaba sida isku duubnida ah ee loogu bareeray in la difaaco dalka iyo dadka calanka iyo ciidda iyo badda iyo hawadaba waa difaacan yihiin qabaa talaabadaas ay qaadeen guracana waxay midaysay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo dalka gudihiisa dibadiisa marka ummadeena diyaar bay u tahay inay difaacato dadkeeda iyo dalkeeda nimankaasna waxaan u maleynayaa
way arkeen ceebta madal kasta oo looga hadlo oo madaxweynaha iyo dawladeenu ay tagaan waa looga guuleystaa waa ku jabiyay marka waxa u dambeysay Security Council-ka ama golaha amaanka ee qaramada midoobay oo maqlayseen in lagu cambaareeyay loogana digay inuu sharciga caalamiga iyo xuduudaha uu ku xadgudbo marka isaga naftarkiisu maanta ka soo noqday rajo